laamaha amniguna waa inay gobolka iyo gobollada kale ay simaan dagaal qabiilaysan ma jiro meelna ma kala nihin hilbo wada dhashay hayb quraynu nahay meel la kala tagay ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waaq u diray xukuumadda Somaliland oo ay ugu baaqeen inay xukuumadda Somaliland dilka soo noqnoqonaya ee magaalada Laascaanood oo ka dhacay inay xukuumaddu si degdeg ah wax ugu qabato geesta kale waxay baaq nabadeed u direen shacabka magaaladaasi ee Laascaanood waxaana hadaladooda ka mid ahaa sidan xukuumadda su'aal weyn baa dul saaran intaas oo dhacda ka soo dhacay oo xanuun badan oo tiiraayo badan oo galilyo badan intiiba su'aashii waa dul saarantay ilaa yoomana haada jawaabna waa laga doonayaa inay qanciso ummaddii ay ummaddani ka baxday inay qanciso gobolkii inay adkayso nabadgelyadii jawaab waafiya oo lagu wada qanci karo oo dadkii ummaddu ka baxday ilaa dilkaas soo taxnaa iyo Somalilandba ayaanu uga fadhinaa dhammaantayo tan waa ka bidaysannahay shir baan hadda ka soo kacnay arrintaasina waana wada taabatay murugadeedana waan leenahay aqoonteedana waan leenahay sidii aanu hawlba bariyo galbeedba uga shaqaynaynay insha allah anagu diyaar baanu nahay salaadiin ahaan in markaad soo baxana tirahdaan garaadooda ay soo baxay yidhahdaan inaanu baxno oonu gacan ka geysano oonu gunudno dhallinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo culimaaudiinkana waxaanu ugu baaqaynaa oo dhinaca saddexaada in arrintu degenaanshaan wax ku qabsan karaynaa degenaanshaanu kiiskaa ciddii lahayd lagu baadigoobi karaya degenaansho ayaa aynu nabadgelyadaynu wax ku qaban karaynaa haddii laakiinse xaaladdeenu ay kacsanaato waxba ma qaban karno wax noo sugtoomi maayaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa naxariis cid kasta oo shaqaaqadii iyo dhibtii Laascaanood ku dhacday ku dhimatay aad iyo aad baan uga murugaysannahay qalbigaanu ka dareemaynaa shucuurtayada iyo dareenkaygu uu inila jiraa aad iyo aad baan uga murugaysannahay arrinkaa dhacay intii dhaawacantayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa caafimaad sariica reer Laascaanoodna kelmad baan leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fitnada dhexdeena horta dhammaanteed ha ka qabto fitnadaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan gelaynaa dhibtu waxba ma soo kordhiso qofunbay inaga dhex saartaa ama inaga dhintaa marka xukuumaddana waxaan u soo wajahayaa ama hadalkaygu uu yahay waxa weeyaan dadka iyo ummaddaba taqriir lagu qancayo dadka haldoorkooda laynaya in la keeno waa muhiim dadkana boogadhayo waxaasa u noqonayo qofkii qofka ka dilay hala keeno ilaahay subxaana wa tacaalana fidnada ha inaga qaboojiyo dagaal qabiilaysanna ma jiro meelna ma kala nihin hilbo wada dhashay hayb quraynu nahay meel la kala tegi mayno meel baynu ku wada nool nahay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa dadkii dhintay inuu naxariisto waxaan leeyahay reer Laascaanood iyo ehelka halkaa jooga iyo dhulbahanteba walaalayaal arrinta hala dejiyo nabadgelyo waxaynu ku weynay dhibaato kale ku iman maayaan arrinta hala dejiyo haddii aan la dejin raggii boqolka qof ee dhowdhow ku dilay Laascaanood ee la qaban waayey maanta shaadhay gashadaan bay helayaan dadkay soo dhexgelaya dembigoodii halkaasaa lagu ilaawaya laakiin waxay la tahay inaynu horta dhibaato dhacda ama colaad dambe oo dhacdaa dhimashadeeda iyo dhaawaceeda iyo dhibkeeda ayay leedahay inaynu horta kuwaas sidaynu u qaban lahayn idinkuna ay isdejisaan aynu iska kaashanno wixii meesha ka dhacayna ciddii khaladkeeda yeelatay ama dawlad ha noqoto ama shacab ha noqotee in meel lagu tiiriyo ayaan anigu ku talinaya waxaanu idiin sheegaynaa haddii aad tihiin ummadda muslimiinta gaar ahaan reer Laascaanood inaanu aad iyo aad uga xunnahay waayo dadka muslimkii inay dee ma garanaysaa isku wiirsadaan ama maxaan ku leeyahay ay isku duulaan dee waa halka qur-aanku iska taagay waa ogtihiin waman yaqtul muuminan mutacamidan fajazaau jahannam bu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi qofka qof muslina kas u dila ama maxaan ku leeyahay dee ka qayb qaata wuxuu ku waarayaa jahannabuu ku waaraya marka annagoo taa ogsoon aad iyo aad baanu uga xunahay waxa halkaa ka dhacay waxaanu idiin sheegaynaa dadkii miidiyaha ku faafinayey ama qabiil oo gaar ahaan lahaa dee isaaq baa ku soo duulay meesha beri baanu ka nahay aad iyo aad baanu uga xunahay dadka halkaa artay ku dhintay ama maxaan ku dhaawacmayna waa wada ehelkayo waa wada habaryartayo waa wada hooyooyinkayo aad iyo aad baanu uga xunahay salaadinta iyo dhaqankana waxaanu leenahay war hadalka si miisaaman ha loo yidhaahdo oo waxa weeye yaan wixii la qabiilayn qabiil istili maayaan waa dadka
dee aanu isleenahay uun habeenkii iyo maalinba waa la laynaya wax laynayana garan mayno yaan la beelayn yaan la bilaayo waxba inama tarto nabadgelya ina deeqda somalilan waa nabad gobolkaana waxaanu leenahay ilaahay nabadgelyada ha u adkayo idinkuna isxakameeya dhammaan laamaha amniguna waa inay gobolka iyo gobollada kale ay simaan waayo gobollada kale ciddii dil geysata markiiba waa lasoo qabtaa laakiin kan markaa la dilo halkaasaa lagaga hadhaa oo ma garanayno iyo maan arkayn wax adduunka ka dhaca maaha maanta nin walbaaba haddii ilmihiisa la dilo dee uu karayaa intuu qori soo galo uu caasimadda soo dhex galo uu doono ku sameeyo